Wasiirka Macdanta iyo tamarta Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta kulan la qaatay gudida joogtada ee golaha wakiilada Somaliland. Kulankan oo ahaa mid xog waraysi ah isla markaasna ay warbaahintu dabajoog ka ahayd ayaa markii uu soo ilaaday waxa warbaahinta hadlay Wasiirka Macdanta iyo tamarta Somaliland. waxaanu halkan kula kulannay gudida joogtada ee golaha baarlamaanka ama golaha wakiilada waa shaqadii caadiga ahayd bay noogu yeedheen in la iswaraysto la iska warhayo xukuumaddu iska warhayso xukuumadda iyo baarlamanku ama xeerdejintu kala warhayso oo ay shaqooyinka qaranka loo hayo ee la wada ogaado wixii su'aalayn loogu baahan yahay in la isweydiiyo ayay noogu yeedheen waanu u warranay wixii su'aal ahaa ee la weydiiyay waanu ka jawaabnay waxaanu sheegnay in wasaaraddu shaqadii iyo ay u haysay qaranka ay hayso horumarno la taaban karana ku tallaabsatay intaas oo noogu soo xidhnay runtii fadhigii aan wada yeelanay waana mahadsantihiin waa si wanaagsan waxaan in badan baan ka hadlay arrinkaa inaan ku celceliyana runtii wax lagu celceliyaa naf ma yeeshaan anigu haddaan ka tirsanaan jiray beri shirkad maanta kama tirsadey ee xukuumad baan ka tirsanahay wasaaradna qarankana waxbaan u qaabilsanahay una dhaartay waajibaadkayga qarannimo ee uu farayo xilkaan hayaabaan ayaan ku shaqaynayaa iyo xeerku runtii su-aashaan lafteedana waxay weydiiyeen imka xildhibaanada aan wada joognay waxaan sidii macdanta iyo tamartu u shaqaynayay baan ula shaqaynayaa dhammaan ama shirkada ha noqdeen ama hay-ada ha noqdeen ama mujtamac ha noqdeen mid walba wixii waajibkiga ahaa baan qabanaya adiga taase waa la xidhan karaa oo koota ma jirto nidaam baa lagu dhaqmayaa waxaa la marayaa qaab baanu u dhignay regulation ah oo sharci ah la isberber eriyo iyo mid iskarusgaraynaya oo ilaa waxaan xil naga saaran yahay waa Maxamed Andar Hormuud Cable TV magaalada Hargeysa.